Kusoo dhawaawa qaybtii labaad sheekadii iska kaylow. Qaybta koowaad ayaa waxa ay noo maraysay in la ii jawaabo iska daayay aamusnaan ayaa la igu kaalmeeyey. Mar labaad ayaan qaylo dhegaha u saaray anigoo wejiga gacmaha kaga riixaya misana waaba layga aamusay. Halkii aan ka sugayay in la ii jawaabo ayaa mar qura ilmaindhaheeda soo qubatay naxdin iyo fariir ayaan qaaday. Waxaan sheegay ayaan garan waayay. Ilbiriqsi markii aan aamusnaa baan waxaan ku iri iga raali noqo anoo gafgafaya hadalka cabsina iga muuqato. Abaya iga raali noqo haddii aan wax qalada aan galay talaabo qaldan aan ku dhacay. Markaas baa iyadoo qarqaraysa igu tira hadal wadnahayga gelgelay. Indhaha adiga laguma siinin inaad igu jeesjeesto anigana la igama qaadin qalad aan galay ee waa cimri qaadasho iyo inaad wax ku aragto anigana aan meelaan u dhaqaaqan garan waayo aadna igu jeesjeesto ayay tiri qaylana dhigahaad iga jebiso. Markay intaasi afkeeda ka soo idlaatay aniga oo lumiyey hadalkii oo naxdintii saameysay gariiraya waxaan sameeyana aan gara la'ahay baan waxaan ku iri walaal iga raali noqo haddii aan qalad galay. Ilaahay qurux waa ku siiyey tanina waa cimri qaadasho. Daqiiqad markuu xaalku sidaa ahaa ayaan safiray tijaabka kala soo baxay dhahana ilinta uga tirtir anigoo dhahaya walaal waan ku baryayaa iga raali noqo xaalku siduu yahay iyo sidaan malaynayay waa kala fog yihiin. Mar alle markii aan isheeda bidix isleeyahay ilinta ka tir bay gacanteedii la soo booday igana iska kay tuurtay. Abaya qalad kale miyaan ku dhacay ayaan ku iri maya ayay igu tiri qalad maadan gelin balse jawaabteedu waxay ahayd waxaan diidayaa inaan galo riyo maalmeed taasi oo ay gacantaada ilinta iga tirtirto oo waxaan ilbiriqsi dhammayn aan ku galo naxariis iyo riyo beena. Erayadaasi waxay noqdeen kuwo aan ku calool xumoodo waxaana ii sawirneed dhibka iyo nolosha liidata ee gabadhaani. Si kastaba anigoo isdhahaya qalbiga u dejisid kana saartay uqdada baan ku iri maya walaal sidaas oo oranin wax walba oo ku haysta way qornaayeen. Waxaana doonayaa inaan kaa saaro uqdada ee naxariista badan walaalo naxariista qalbigaada khayr u sheeg waad mahadsan tahay ayay igu tiri. Intaa kadib ayaan bilaabay inaan furo barasho aniga iyo iyada ah anigoo hadalkii bilaabaya ayaan ku iri barasho wanaagsan abayo magacaygu waa Xafse waxaan deganahay xaafadda geed jacayl ee degmada Wardhiigley wanaagsan oo wacan waxaan la yiraahdaa Easter waxaana ku noolahay xaafadan ayay igu jawaabtay. Markay intaasina dhex martay baan waxaan wadada uga leexiyay gees dhex martay sheeko wanaagsan. Waxay ii sheegtay inay gabar ay deris lahaayeen oo ay meel u wada socdeen meesha uga tagtay kadib alaab markay guriga ku soo ilowday. Easter waxay ii tilmaantay gurigooda halka uu ku yaalo waxaana ku ballamiyay inaan mar kale xaafadda ugu imaanayo nolosheedana aan weydiinayo iyo siday ku nooshahay inay aaminto. Waxay u aragtay wax kaftan ah oo riyo beelmaad ay ku jirto iyo inaan iska hadlayo. In yar markaan halkaasi wada joognay ayaan ku macsalaamay oo waxa u timid gabadhii waxaana aaday gurigii Asad oo runtii aan ka dahay. Waxaan la kulmay saaxiibkay oo markaa albaabka ka soo baxay wax hadal ahla iskama aana sii lumin wax waqti ahna iskama aana sii lumine garoonkii aan u soconay aadan cadde ayaan horey u sii aadnay. Asad wuxuu u dhoofiyay dalka USA abaaro 8 barqanimo ayaan ku soo laabtay gurigii saaxiibkayna aan ku hubsaday diyaaradii. Markaan gurigii imid ayaan bilaabay inaan isku diyaariyo oo aado wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo aan ka shaqay jiray si aan u soo guto shaqo maalmeedkayga oo 4 saac hore aan ka fasaxnaa. Maalintaas waxay ahayd maalin taariikhi ah oo habeenkii oo dhan aana seexan sariirtii hurdo ayaa iga soo dhici weyday. Waxaana bilaabay inaan ka fakaro dhacdadii maanta iyo kulankii Easter waxay noqotay arrin qalbigayga aan ka goyn waxaana qalbigayga ku soo noqnoqonayay waxay ahayd quruxda Rabbi u dhamaystiray gabadha iyo indho la'aanta haysataa indhaheeda hadday u caafimaad qabi lahaayeen maxaa la isku dili lahaa ayaan dhahayay intii aan sariirta ku sugnaa oo aan hurdada iska raadinayay. Hase ahaatee su'aashaasi waxaan u dhigtay kulanka labaad ee aan Easter guriga ugu tagi doono. Halkaa ha noo joogto qaybta labaad ee sheekadii iska kaylow. Waxaan kaa codsanayaa inaad YouTube-ka si naxariis leh subscribe igu saarto